kulankani oo ahaa mid lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yariisow isla markaana ay soo qaban qaabiyeen ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gaadiidka gobolka Banaadir ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay kulankani taageerada mas'uuliyiinta iskaashatooyinka gaadiidka gobolka Banaadir iyo marjaraf kala duwan oo lagu casuumay kulankaasi Daahir Maxamuud Dirro waa gudoomiyaha dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gaadiidka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir isla markaana ay la shaqeynayaan hadda ka shaqeynayna iskaashatooyinka waxa soo qabteen oo magaalada wax ka dhiseen xarunta Fiisha Gumeerna ayaga dhisay oo gacanta weyn ku lahaa guriga hadda taagan ayaga dhisay wadooyin badan wax ka dhiseen haddana waxaan ayadoo laba jibaaran inaan barbar istaagno gudoomiyaha cusub aan wax nala dhisno wax nala qabanno wixii oo u baahan aan la garab istaagno haddii la idmo iskaashatooyinku waa diyaarsan yihiin waa urur wax soo saar waa abaabulan yihiin hadday dhagax yihiin quudkii adeega oo garanaysaa qudaartii hilibka dhismihii kaawooyinka dhagax wax lagu salamoyn gaadiidkii marka warkayga waxaan ka dhiganaa munaasabadda soo dhaweynta furitaan ka dhiganaa madax badan oo iskaashatooyinka aga dambaysa sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iskaashatooyinka gaadiidka gobolka Banaadir waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir iyagoona ka codsaday in wax badan uu ka qabto dhibaatooyinka ay tabanayaan iskaashatooyinka waxa xuquuqdeeda ka sugaya 3 milyan oo Soomaali oo Muqdisho ku nool gobolka Banaadir ku nool hadda wixii ay maaragtay ay mudnaayeen iyadana waxa weeye xil baa ka saaran iyadoo Soomaali oo dhan xil ka saaran yahay gobolka Banaadir xuquuqdiisa xil gooni ayaa ka saaran haddii Ilaahay masaasana ku leeyahay xilkaagana Allah kula qaado Ilaahay idankiis allana ku fududeeyo xaqa in laga hadlana xaaraan ma aha diran ku biiragnay oo qudaarta oo ka ganacsadaan hilibka ka ganacsadaan laakiin raali ahaa gudoomiye anaga dhulkan wax ku ganacsanaa hadii marka adduunyadana sanad kasta waxay noo soo qorsheysaa qarash oo dib u dajin mana soo gaaro waa jecelnaa intii dib u dajin aan helno dalkaynu ku noqono laakiin cidna quuro haysa ma laha gudoomiyaha gobolka waxaan rabnaa noloshayna sidii ku fiicnaato dadkaynan oo maragtay oo soo barakacay oo dhulka wax ku gadiyo hayo inaa miisasi ama suuqyo loo yeelo ilaa aan ka noqonayno anagu ah iskaashatada mataqaanaa gobolka Banaadir joogaan nahay marka waan hambalyeynayna insha Allah taala waxaan ka rabnaa wada shaqeyn buuxda inuu mataqaanaa dadka u sameeyo xoogsatada Soomaaliyeed oo nooc kasta iskaashatooyinka waxay diyaar u yihiin inay ku garab istaagaan inay kula shaqeeyaan dadkaanu dad NGO ama aha dad mataqaanaa kaalmo dad ka raba ma ahan waa dad xoogsada lagana hortaagan yahay inay xoogsadaan oo dalkooda ka xoogsadaan ku soo dhawaaw gudoomiye dhawaan ay ahayd markii wareegta ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya lagu magacaabay in Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yariisow uu noqdo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Waabiri Som News Muqdisho